بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلام عليه وبعد مقعي وسلطان عبد الله محمود معدكم من Institute for Political Science and Knowledge مركوادي مرلوادي مرصد حاد بآدي آد بان إذن كسور دوينينا waxaan rabnaa inaan casharkeennii sii guda galno course xisaabaadka ganacsiga casharkan cashar baa ka horeeyay oo qaybta koowaad aanu soo dhignay insha Allah waxaan rabnaa inaan uga faa'iideyno dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ama ganacsatada Soomaaliyeed inaan si free uga faa'iideyno macadka midnimo Institute for Political Science and Knowledge waxa ka go'an in uu si wanaagsan oo qiimo iyo qaayla ganacsatada Soomaaliyeed ugu soo bandhigo xisaabaadka ganacsiga annagoo aan ognahay dhibaatada ay xisaabaadka ganacsigu ay leeyihiin insha Allah waxaanu ka soo turjunay ama aanu ka soo qaadanay oo Soomaali u badnay buugaagta caalamka sida Frankfurt-ka iyo buugaha kale ee ISIS-ka marka insha Allah waxaan rabnaa ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay ka faa'iideystaan fursadan qaaliga ee macadka midnimo Institute for Political Science and Knowledge uu bixinayo marka insha Allah casharkii waan sii gudo galeynaa عربنا عتبك كواد وان أغنى عشر كهوران وسوق قادني عشر كواد وحنو جعلنا إن شاء الله هدي عشر كهوري أما عشر كواد أنا دقيسن فضلا بليس حن كلنا هاي معدكم منما Institute for Political Science page كقل أما ويب سايت كان www منما Institute for Political Science and Knowledge أما برتا عن يوتيوب كلنا إن شاء الله الله كشرف الله كراميه marka maanta waxaan rabnaa intaanu casharka galin inaanu si guud u sharaxno casharkii hore insha Allah waxaanu soo dhignay waa maxay xisaabaadka intee loo qaybiyaa maxay tahay faa'iidada ay leedahay insha Allah xisaabaadku waa maxay xisaabaadka waa maxaan wax xisaabinaa insha Allah si guud hadaan u sharaxno xisaabaadka ganacsiga waa very important waxay u tahay nolosha qofka muslimka ah ama nolosha qofka ganacsada oo xisaabsanaya hadii uu qofku uusan lahayn uusan xisaab uusan adduunka uusan ku saleyn kaleyn ganacsigiisa waxaad u moodaa inuu runtii khasaaro badan galayo Soomaalidan waa ka maahmaahdo waxay tiri xoolo xisaab la'aan bay dhamaadaan marka insha Allah faa'iidada ay leenahay waa aad iyo aad baan ognahay oo hadii aanu xisaab jirin wax kasta waa khasaari lahaayeen wax kasta adduunka maanta xisaab baa lagu kala wadaa hadii aad aragto waxa weeye xisaabaadka accountantiga very important waxay yihiin dadka ganacsatada Soomaaliyeed marka insha Allah waxaan rabnaa casharkeena insha Allah si guud inaynu hadda u galno insha Allah cutubka koowaad xisaabaadka maaliyadda xisaabaadka saddex baan u qaybinay xisaabaadka financial accountant xisaabaadka maaliyadda xisaabaadka kharashaadka cost accounting iyo xisaabaadka maamulka managerial accounting horena waan u soo sheegnay marka hada mid kasta si guud baan u sharaxaynaa oo mid kasta si gaar ah baan rabnaa insha Allah inaan u sharaxno xisaabaadka maaliyadda financial accounting وارن سفير ريفريو نكن يراهدو oo aadka professorka aadka wax uga tixraaca oo wax aadka buwaagta badan aan uga soo tixraacno 1996 wuxuu ku qeexay sidaan xisaabinta qaybta maaliyadda waa qayb qaabilsan diiwaangelinta iyo warbixin ka sameynta dhammaan dhaqaaqyada ganacsigu sameynayo iyo wixii la xiriira for example wax kasta oo dhacaya transaction kasta oo dhacaya qayb kasta ay wax u dhacayaan sida wax loo diiwaan gelinayo qaabka transactionka adiga iyo qofka macmiilka customerska waa noo soo socdaay qaabka ay isu diiwaan gelinayo iyo qaabka transactionka oo inoo marayo ayuu wuxuu ku qeexay sidaan xisaabinta qaybta maaliyadda waa qayb qaabilsan diiwaan gelinta iyo warbixin ka sameynta dhammaan dhaqdhaqaaqyada ganacsigu uu sameynayo iyo wixii la xiriira waxa laga rabaa report waxa laga rabaa sanadkan yearska wuxuu qabtay waxa laga rabaa monthka wuxuu qabtay waxa laga rabaa weekly wuxuu qabtay transactionadii sida ay wax u dhaceen macaamilaadka waxa way qaybihiisa wax u kala dhaceen bangiga haduu jiro bank regulationki hadii uu jiro waxa way cash or received of cashki hadii uu jiro waxyaalaha aynu bixinay oo waxa way account payable ka nagu lahaa dadkii day waxa way deysadayaashii ama dadka waxa way deymaha nagu lahaa oo qaasay Soomaaliga wuxuu yiraahdaa qaan sheegtayaashii nagu lahaa inaanu bixino inaynu dadkii anagu lacagaha ka soo urursanay account receivable ki dadka aanu lacagaha ku lahayn marka wuxuu ku qeexay sidaan xisaabinta qaybta maaliyadda waa qayb qaabilsan diiwaangelinta iyo warbixin ka sameynta dhammaan dhaqdhaqaaqyada ganacsigu sameynayo iyo wixii la xiriira hadba sidaan kor ku aragnay qaabka loo qeexayo qaybtan waxay inteeda badan khusaysaa in macaamilaadka ganacsigu business transactionka loo qoro ama loo qoro siday isku leeyihiin iyagoo halbeega lagu cabirayana uu yahay lacag lana raacayo xeerarka caalamiga u degan
xisaabaadka ganacsiga general accept accounting principles. waxaanu ogsoonahay in ganacsigu iyo accountantigu uu leeyahay principles. insha allah way noo soo socotaa casharadeena soo socona inuu xeerar leeyahay, inuu leeyahay double credit waxa la yiraahdo, inuu leeyahay double period, inuu leeyahay transactiono qaabab loo geliyo, qaabab loo maamulo, qaabab deynta loo bixiyo, qaybab anagu soo qaadano, qaybab bangi wax loo dhigo, qaybab cashka loo bixiyo, qayb cashka loo qaado, qaybka macaamilaadka, wax noocaas oo kale ah. marka account of principleska haddii aad fahanto accountant of principleska, mabaadi'da accountantka ama mabaadi'da xisaabaadka, waxaa kuu fududaanaya inaad sii guda gasho xisaabaadka ganacsiga. waayo xisaabaadka ganacsiga ama xisaabaadka accountantiga wuxuu khuseeyaa principles of the accountancy. marka si guud waa inaad transactionada business transactionada macaamilaadka ganacsiga si isku leeyihiin, in sida ay isku leeyihiin aad u diiwaangeliso adigoo raacaya halbeega lagu cabirayo, halbeegaas oo xeerarka caalamiga u degan xisaabaadka ganacsiga accept accounting principle of accounting. good waxaanu ka soo baxnay xisaabaadka maaliyadda financial of accounting, sidaan wax u xisaabin lahayn, sida monthly aan u xisaabin lahayn, sida weekly aan wax u xisaabin lahayn, sida yearka 12 monthly aan u xisaabin lahayn. marka aynu xisaabaadka dejino qaabka aan wax u dejin lahayn, aynu diyaarino balance sheetka, kaasi wuxuu khuseeyaa waa financial accounting business strategy. qaybtan waxaanu ku qeexi doonaa qaybta xisaabinta kharashka cost accounting. waa qaybtii labaad break ninka la yiraahdo oo professorka caanka ah 2013 wuxuu ku qeexay qaybtan xisaabinta kharashaadka cost accounting. wuxuu ku qeexay qaybtan sidaan soo socota. xisaabinta kharashaadka waa qaybta baaritaan ku samaysa, waa qaybta baaritaanka ku samaysa kharashka iyo noociisa. kharashku muxuu noqon doonaa, noocee buu noqon doonaa, in intee la eg baa naga geli doonta, shirkadu profit ma ku qabtaa, shirkadu loss ma ku qabtaa, shirkadu wax ma ka faa'iideysaa, qaab noocee baan ugu sameynaa, sidee baan ugu jaangoynaa kharashka iyo lacagtiisa. waa la fiirinaya, waa cost accounting. qaybta xisaabinta kharashaadka cost accounting waa qayb kamid ah xisaabaadka ganacsiga. ereyga ka muuqda waxaanu oran karnaa waxay qabtaan oo khusaysaa jaangoynta iyo xisaabinta kharashaadka ay ku kacayso ama ku fariisanayso badeecooyinka shirkada iiminayaan ama ay soo saarayaan. waa inay jaangoysaa xisaabinta kharashaadka ay ku kacayso, faa'iidada intee la eg bay ku kacaysaa, shayga qiimo intee la eg baan ku samayn karnaa, shaygan for example oo kale xabada rootiga intee aynu ku samayn karnaa, qiimo intee la eg baynu ku soo saari karnaa. marka hore anagu determination of the cost ku sameynayna, kadibna profit ka la fiirina, shirkada faa'iido ma ugu jidhaa, shirkadu khasaare ma ugu jidhaa. shirkadu haday faa'iido ugu jidho shayga waa la gadaya, hadaysan shirkadu aysan faa'iido ugu jirinna shayga lama gadayo, waxa la leeyahay kharash ama shirkadu wax ku dalacaya. sidaa daraadeed looma baahna baa la leeyahay. marka si loo hubiyo kharashaadka cost accounting waa meesha ugu muhiimsan ee ganacsigu ka kala socon karo. waa in uu jiraa cost accounting, in la jaangooyo xisaabaadka ganacsiga, in la jaangooyo xisaabinta kharashka ku baxaya. shaygan intaasa ku baxaysa, intaasaana profit ka helaynaa, waanu iibinaynaa, shirkadana profit intaa in la eg buu uga faa'iidaya. very good. inta badan shirkadaha Soomaalidu waxay u isticmaalaan badeecooyinka sameeya ama kuwa badeecooyinka sameeya ama wax soo saara manufacturer of the companies waxayna ugu faa'iideystaan ama waxa ay uga faa'iideystaan sida ay u jaangoyn lahaayeen shayga la sameynayo. for example oo kale shirkadaha sida Tawfiiq, shirkadaha kale oo caanka ah, waa in ay jaangoyn ay ku sameeyaan shayga ay soo saarayaan. for example oo kale haday mobile soo saarayaan, haday glass soo saarayaan, haday badeecooyin soo saarayaan, waa in ay qeexaan oo cost determination ay ku sameeyaan oo ku analyze gareeyaan shaygan maxaa faa'iido noogu jira, shaygan intee leeg buu noogu jira, shaygan hadaan 0.5 aanu ku kharash gareyno
$1 ma ka faa'iidi karnaa, 0.7 ma ka faa'iidi karnaa, 0.8 ma ka faa'iidi karnaa. haddii 0.5 aynu ka faa'iidno shirkadu $1 ma ka faa'iidi karnaa, profit baa la fiirinayaa. shaygaas 0.5 baanu ku sameynay, $1 waa ku gadaynaa, shirkada waxaa ugu jira 0.5, shaygaa waa la iibinayaa waayo shirkada profit baa ugu jira. sidii loo ogaan lahaa shayga qiimihiisa iyo kharashka ku baxaya soo saarista shayga, cost determination waa in la sameeya, waa in lagu analyze gareeyaa shaygan wixii ka soo baxaya, in la qiimeeyaa shaygan, evaluation estimate in lagu sameeyo, in waxaan shaygan uu socon karo, product intaa la ego la samayn karo. ilaa shaygada manufactured companies la sameynayo waa la soo gudbinaya oo qolooyinka marketingka sameeya ayaa waxa soo gudbinaya, intaasaa loo baahan yahay, qiimo intaa leeg baa loo baahan yahay, shayada intaasaa loo baahan yahay, badeecadaasaa loo baahan yahay. kadib waa analyze garaynaysaa shayga intaasu noogu joogaa, intaasaanu ku iibinaynaa, dalabka 500 oo xabaana loo diray, 500 costigii halka mid intaasu ku fadhiyaa. noocaasaa la yiraahdaa cost determinations. iyo sidii shaygaas kharashka ku baxay loo garowsiin lahaa, allocation of the cost of product of the service, allocation si loo qiimeeyo basic vlog of area of a cost of product of the service. shaygan si hadhow kharashkii kusoo bixi lahaa looga jari lahaa profitka markii la fiiriyo. shaygaas qiimo qiisa intaa lagu noogu fadhiyaa, intaasaanu ka iibinay, 500 oo xabaa la soo saaray, halkii xabo 0.5 oo noogu fadhiyay, profit waxaanu ka faa'iidnay $1, 500 oo xabaanu iibinay. haddii 500 oo xabo aynu ku dhufano $1 waxaa soo baxaysa 5,000. sidaasaanu u qiimeynaynaa 5,000 waxaanu marka hore ka jaraynaa intii marka hore aanu ka faa'iidnay. allocation of the cost of product of the service baa la yiraahdaa. very good. intaasaanu uga baxaynaa xisaabaadka kharashaadka cost accounting. waa in loo jaangooyaa shayga uu soo saarayo shirkadu ama productiga la soo saarayo, waa in lagu jaangooyaa kharashka. intaa unbuu ka hadlaya. haddii aanu qodobka 3aad aynu u gudagalno xisaabaadka maamulka managerial accounting, waa labaanu soo dhaafnay. kii koowaad wuxuu ahaa financial of accounting, kii labaadna wuxuu ahaa financial of the cost accounting. kana hadda wuxuu noqonayaa xisaabaadka maamulka managerial accounting. waa qeyb ka mid a qeybaha xisaabaadka ganacsiga ee maanta lagu shaqeeyo, waxaana inta badan khusaysa sidii maamulka sare iyo kuwa dhexe ee shirkaduhu ku heli lahaayeen dhammaan xogaha dhaqaale ee shirkadda si dhammaystiran oo haddana xaqiiq ku salaysan si ay u dejiyaan siyaasadda dhaqaale oo ku habboon shirkadda iyo sidii ay u ilaalin lahaayeen hantida ganacsiga. managerial accounting waxaa isticmaala inta badan MIS baa la yiraahdaa. inta badan waxaa isticmaala top levelka managerial of accounting, maamulka sare iyo maamulka dhexe, si ay u dejin lahaayeen dhaqaalaha shirkadda, future of the value. shirkadda sanadka 5 sano ay soo socotaa, waxaanu rabnaa qiimaha intaa la eg inay ku faa'iido, ama profitka intaa la eg inay ka faa'iido baa loo baahan yahay. marka shirkadu waa inay leedahay goal orientation, waa inay leedahay ahdaafyo ay sanadada iyo sanadka dambe ama sanadada dambe soo socda ay gaari doonto. marka waa loo baahan yahay xisaabaadka maamulka managerial accountingka. waliba xisaabaadka managerial accounting waxay si guud u hoos tagi karaan xisaabaadka maamulka ama xisaabaadka managerial accounting. waxaa soo hoos tagaya labadii qayb aanu soo sheegnay, xisaabaadka accountantiga iyo cost accounting. labaduba si guud waxay u soo hoos tagayaan managerial of accounting, xisaabaadka maamulka, si uu maamulku u ogaado xaaladda dhaqaale ee ku sugan yahay shirkadu, si loo dhammaystiro, si loo helo, si loo xaqiijiyo ahdaafyada iyo siyaasadda dhaqaale oo ku habboon shirkadda in loo ilaalin lahaa hantida ganacsiga. haddii shirkadu ama organizationku ama companygu uu sanadadii u dambeeyey, dhowrkii biloodu u dambeeyey, khasaare uu soo saarayay, aanu wax profit lahayn, maamulka shirkadda waxaa looga baahan yahay si degdeg inay arrintaa uga fariistaan oo ay u jaangooyaan khaladaadka iyo misstatementiga iyo errorska iyo waxyaalaha keena in loss uu meesha ku yimaado. marka xisaabaadka maamulka managerial of accounting si guud iyo si gaaraba waa ula socdaan xisaabaadka kharashaadka iyo xisaabaadka accountantiga.
Weymouth Free Review ninkan professorka ah 1996 wuxuu ku qeexay xisaabinta maamulka sidaan soo socota. xisaabaadka maamulka waa qayb khusaysa sidii maamulku u heli lahaayeen xilli kasta ay u baahan yihiin xogta iyo warbixinta ganacsigooda, sida xisaabinta qaybta maaliyadda oo kale. qaybtan laguma khasbana in shuruucda u degan xisaabaadka la raaco, sida xeerarka caalamiga ah ee u degan xisaabaadka ganacsiga General Accepted Account Principles. lama rabo ama khasab maaha ama maba ahaba in General Accepted Account Principles mabaadi'da in la raaco, waayo maamulku xilli kasta way u baahan yihiin inay ogaadaan xaaladda dhaqaale oo ku sugan yahay shirkadiisu. marka kumaba khasbanaba inuu xeerarka caalamiga ah u degan xisaabaadka ganacsiga la raaco, laakiin xisaabaadka maaliyadda way ku khasban yihiin General Accepted Account Principles inay maraan, waayo iyagu waa shuruuc, iyagu business transaction bay qaadayaan, akoomaa la gelinaya. waa inay ogaadaan credit of iyo debitka, garabka bidig iyo garabka bidix waxa galaya, qaybaha kala galaya, qaabka loo diiwaan gelinayo, qaabka lacagaha loo xareynayo, qaabka lacagaha loo bixinayo, qaabka qofka revenue-ga loo siinayo, meelaha ay nooga imaanayeen saliiska, sidaan wax u iibin lahayn, sidaan wax u soo gadan lahayn. waxay u baahan tahay principles mabaadi si ay xoolaheena iyo xisaabaadkeeda ay u noqdaan kuwa hormaray oo ay yihiin wax xisaabsan. marka waxa loo baahan yahay in ay raacaan General Account of Principles inay raacaan, laakiin qolooyinka managerial of accountantigu kuma khasbana inay raacaan, waayo iyagu muhiimba uma aha. waqti kasta, xilli kasta, goob kasta shaqada ay ku jiraan waxay analyze garaynayaan heerka uu marayo ganacsigoodu, waayo waxan waa laga xisaabinaya iyaga laftigooda. dhinacyada ka faa'iideysta xogaha maaliyadda, yaa maaliyadda ka faa'iideysta, yaa xisaabaadka maaliyadda ka faa'iideysta. dhinacyo badan ayaa ka faa'iideysta xogta maaliyadeed ee shirkadaha, kuwaas oo u isticmaala ujeedooyin iyo ahdaaf kale ka disan. dhinacyada ka faa'iideysanaya xogtaas waxaa si guud ahaan u kala qaybin karnaa laba qaybood oo kale ah: isticmaalayaasha xogta xisaabaadka gudaha oo ingiriiska lagu yiraahdo internal users, iyo isticmaalayaasha xogta dibadda external users. hoos ayaanu ku faahfaahin doonaa insha Allah haddii alla idmo. waxaan u qaybin doonaa laba qaybood: internal userska iyo external userska. yaa ka faa'iideysta xogaha maaliyadda, yaa ka faa'iideysta xogaha dhaqaalaha ee maaliyadda. internal users muxuu yahay, external users maxay yihiin? labadan qaybood insha Allah waxaan rabnaa inaan casharka ku sharaxno haddii alla idmo. haddii aynu qodobka koowaad aynu soo qaadno isticmaalayaasha gudaha internal userska, maamulka xogaha maaliyadeed ee shirkadda waxa aad u isticmaala maamulka shirkadda qaybaheeda kala duwan, iyagoo ku ogaanaya guud ahaan xaaladda dhaqaale ee shirkaddu ku sugan tahay, iyo sida mustaqbalka go-aanada ay uga qaadan lahaayeen, ugu saleyn lahaayeen dhaqaalaha ay haystaan, sida markay timaado dejinta qorshayaasha kharashaadka iyo ogaanta faa'iidada sugan iyo wixii la mida. sidoo kale maamulku waxay u isticmaalaan sidii ay u heli lahaayeen hantida shirkadda si aan loogu takrifalan hantida. maamulka waxaa looga baahan yahay inay markasta la socdaan xaaladda dhaqaale ee shirkaddu meeshay marayso, meesha ay wax marayaan, meelaha ay wax marayaan, sida wax loo wado, qaabka wax loo analyze garaynayo, meelaha ay wax nooga yimaadaan, faa'iidadu intay la eg tahay, inta kharashaad yimaaday. waxaasoo dhan waxaanu ku ogaan karnaa waa inuunu garinaa hadda waa laga caanbaxay wixii annualka accountantiga lagu mari jiray. meel kastoo software baa hadda la isticmaalaa. hadda waxa yimi book aanu insha Allah ama aynu loo wadaagi doono quick book la yiraahdo insha Allah, oo loogu talagalay in wax lagu xisaabiyo. marka 1 minute baa waxa ku ogaan kartaa shirkadaadu waxay faa'iido iyo waxay khasaaray. marka waagi hore waxaa jiri jiray annualka waxyaalo iska duwan oo kala duwan, si gacmaha wax loogu xisaabiyo. marka dhib ayay ku ahaan jirtay inay maamulku ogaadaan sida wax u heli lahaayeen, laakiin hadda 1 minute bay ku ogaan karaan xaaladda dhaqaale ee shirkadda. isticmaalayaasha dibadda external users, haddii aynu fiirino external userska, isticmaalayaasha gudaha waxa isticmaala oo kaliya
waa maamulayaasha iyo waxa kaloo isticmaala ee employeeska iyo shaqaalayaasha. waayo shaqaalayaashu ama shaqaalaha staffka employerska waxa ay ku salaynayaan ama ogaanayaan shirkadda laftigooda xubin bay ka yihiin, way ogaan karaan xaaladda dhaqaale ee shirkadu hadday khasaaro badan ku jidho macamilaadku ama ay employeeska dadka waxaway shaqaalaha way kaa og yihiin, wayna waxaa dhici kadhaa inay shirkadda ay kaba tagaanba waa dhici kadha. waayo shirkadii muddo badan ma shaqayn kadho, dhaqaalo badan ma hayso, waxaa dhici kadha inaysan 12 month aysan waxaweye aysan xataa dhaqaale aysan ku filan shaqaalayaashooda inay siisto. marka laftigoodu way ogaanayaan oo way ka faa'iideysanayaan xogaha maaliyadda waa la socdaan. marka isticmaalayaasha dibadda iyagana external userska waxaa ka faa'iideysan karaa macaamiisha customerska. ereygan haddii aynu fiirino customerska waxaa la yiraahdaa dadka adiga aad alaabta u geyso adiga kaa ganacsanaya oo adiga aad alaabta siinayso oo adiga ku ah customerska oo adu waxa weeye macaamilaadkaagi waa dadkaagi macaamiishaadii sida aad waxa weeye markasta wax ugu geyso iyagu adigay kugu xiran yihiin. for example ahaan Soomaali ahaan tawfiiq oo kale waxay soo saartaa rootiga waxaa ka qaata dadka bakhaarada iyo dukaamada haysta. dadka dukaamada haystana way sii iibinayaan. marka bakhaarku adiga wuxuu ku yahay customers. suppliersna waxaa la yiraahdaa waa noo soo socdaaye dadka adigoo aad wax ka qaadanayso oo aad macaamiisha aad wax la wadaagayso aad alaabta ka soo qaadanayso. dadka adiga alaabta ka sii qaadanayana customers baa la yiraahdaa, waa macaamiisha. insha Allah waa noo soo socdaan macaamiishu waxa ay yihiin, macaamiisha xuquuqda ay leeyihiin, macaamiishu waxyaalaha nalooga baahan yahay inaynu siino. waxyaalaha nalooga baahan yahay waxa kamid ah in safety in right of safety inaynu ilaalino waxyaalaha aynu ka iibinayno macaamiisheen. waayo wax kasta imaan kara, accountability baa imaan kara, responsibility baa imaan kara. waxa aad customerkaaga iyo macaamiishaada ka iibinayso waa inay ahaata adhoid level of a cycle, waa in aysan khatar aysan ku lahayn health our life caafimaadkooda iyo noloshooda. waa inaad ka iibisaa wax xalaal ah. marka customerska ereygaas saasaa la yiraahdaa macaamiisha shirkadaha waxay ka mid yihiin dadka aadka u daneeya inay ogaadaan xaaladda dhaqaale ee shirkadda ay la ganacsanayaan ama la tamacaamulayaan. maxaa yeelay macaamiishu qaybtood waxaa laga yaabaa inay lacago horumaris ah shirkadda u dhiibtaan si ay badeeco uga qaataan waqtiyada soo socda. taasina waxay u baahan tahay in macaamilku marka hore uu ku qanco xaaladda dhaqaale ee shirkaddu. haddii for example oo kale shirkaddu ay tahay shirkad ama organizationku ama companygu uu yahay company aanan waxba hayn, for example oo kale number raba $500,000 inuu xawaalad u dhigo oo meel kale u gudbiyo. for example dad ugu jira kiraayaal $500,000 oo aysan awoodin in $500,000 xataa aysan iyagu awoodin ama hanti ahaan aysan haysan. de xoolahaaga kuma aamini kadid, waayo waxay yihiinba ma taqaanid. $500,000 ama wax ka yar bay qolal bay ugu jiraan koro lacag ra'sumaala oo ay haystaanna ma jiraan. marka waa kuma khasbanid umana dhiiban kadid hantidaada, waayo kumaba qanacsanidba. marka si ay macaamiisha ugu qancaan xaaladda dhaqaale ee shirkaddu waa og yihiin wayna ka faa'iideysanayaan xogaha dhaqaale ee shirkadaha badeecooyinka laga soo gato. supplierska waataan haddaan soo sheegnay supplierska ereyga supplierska waxaa la yiraahdaa waxaa la dadka anagu aan wax ka soo gadano oo anagu macaamilaadka oo ayagu anagu aan ku xirannahay, dadka aan anagu ku xirannahay oo anagu wax ka soo qaadana baa la yiraahdaa supplierska. customersna waxaa la yiraahdaa dadka anaga macaamilaadka nooca oo anaga wax naga iibsada baa la yiraahdaa. marka dadka badeecooyinka laga soo gato supplierska shirkadaha waaweyn ee badeecooyinka laga soo iibsado aad ayay u daneeyaan inay ogaadaan xaaladda dhaqaale ee shirkadda ay la ganacsanayaan. maxaa yeelay haddii ay codsadaan macaamiisha shirkadda in deyn la siiyo si loo go-aamiyo in deyntaas la siiyo iyo in kale waxay ku xiran tahay hadba xaaladda dhaqaale siday tahay. for example oo kale waxaad rabtay companyga
ama for example waxaa rabtay Islam Bank inaad ka qaadato lacag $5,000 si aad ganacsigaaga business transactionkaada u sameyso. marka si lagu aamino waa inaad soo daabacataa sanadaadkii ugu dambeeyay shirkadaada, profitkeedii, balance sheetkeedii, income statementgeedii, cash flowgeedii, shirkadu ma khasaaraysay, ma faa'iidaysay, intee la eg bay khasaaraysay. waxaa la rabaa insha Allah inaad u daabacdo si ay iyaguna uga qaataan go'aan in qofka deyn la siin karo in kale. haddii sanadadii u dambeeyay ay khasaaro ku jiray shirkadaadu, de companyga ama bangiga ama central bankiga ma awoodin inuu deyn ku siiyo, waayo sanadadii u dambeeyay waa khasaaraysay. marka sidaa daraadeed si loo go'aansado waxaa la xaqiijinayaa ahdaafta central bankiga waa in marka hore soo daabacdaa warbixintaadii sanad kala xisaabeedkaagii hore ee sanadadii hore, ma faa'iidaysay ma khasaaraysay. haddii aad faa'iidaysay oo aad 5,000 u baahan tahay waa lagu siinayaa, waayo waxaa la ogaanayaa companygaagi iyo waxaa la ogaanayaa accountkaagi. sidoo kale waxaaba laga yaabaaba inaad account ku leedahay Islam Bank, marka way kula socdaan dhaqdhaqaaqaagii sanadadii u dambeeyay. maalgeliyayaasha iyo bangiyada laba haday waataan soo sheegnay dadka ka faa'iideysan kara xogaha maaliyadda labaan u qeybaynay internal users iyo external users. internal users waxaan ku qeexnay ama waxa weeye maamulayaasha waa dadka wax ka faa'iideysan kara, sidoo kale employees dadka shaqaalayaasha way ka faa'iideysan karaan. externalkana waa soo sheegnay supplierska iyo maalgeliyayaasha ay qodobkaasaan ugu dambeeya u maleynaya casharkayga insha Allah. maalgeliyayaasha iyo bangiyada investors and banks baa la yiraahdaa, waa dadka wax maalgeliya iyo bangiyada. haddii uu bangi shakhsi ama shirkad ay doonayso inay maalgelin ku sameeyaan shirkado kale, waxa uu maalgeliyuhu u baahan yahay inuu ogaado xaaladda dhaqaale ay ku sugan tahay shirkadu u maalgelinayo ama shirkada uu maalgashiga ku sameynayo. waa inuu ogaadaa marka hore shirkada uu maalgashiga ku sameynayo, waa inuu yiraahdaa ha soo daabacda ama ii keena warbixin kala xisaabeed shantii sano ugu dambeeyay shirkadiinu siday ahayd. marka adiga ama qofka maamulaha ah ama qof companyga iskale waxba la weydiin maayo, waxa la weydiinaya shantii sano u dambeysay warbixin dhaqaale, intee la eg buu helayay, faa'iido intee la eg buu helayay, khasaaro intee la eg buu helayay. marka sidaas loo xisaabinaya. haddii uu bangi shakhsi ama shirkad ay doonayso inay maalgelin ku sameeyaan shirkado kale, waxa uu maalgeliyuhu u baahan yahay inuu ogaado xaaladda dhaqaale ay ku sugan tahay shirkadu uu maalgashigu ku sameynayo iyo waqtiyada tagay sida ay xaaladeeda dhaqaale ay ahayd, si ay ugu fududaato inuu go'aansado inuu maalgelin ku sameeyo shirkada iyo in kale. go'aan buu ka soo gaaraya markii 5 sano u dambeeyay loo keeno shirkadu haday faa'iideysay, go'aan buu ka qaadanaya. haday shirkadu khasaaraysana, go'aan buu ka qaadanaya. haday shirkadu faa'iideysa yes investors baa lagu sameynaya, waa lagu maalgelinaya, finance baa lagu sameynaya, ama government ha ku maalgeliyo, ama foundation hay'adaha ha ku maalgeliyeen, ama capital business ha ku maalgeliyaan, waa lagu maalgelinaya. for example waxa tahay qof qiimo leh ama waxa tahay company 5 sano u dambeeyay wax faa'iideeyay, marka waxa weeye waa lagu siinayaa waxaana tahay very good. haddii aad 5 sano u dambeysay khasaaraysay, nina kugu khasaarin maayo lacagtiisa meel oo waxa weeye uusan waxba ka soo socon. marka sidaa daraadeed insha Allah casharkeen halkaas uu noogu egyahay insha Allah midnimo Institute for Political Science and Knowledge, macadka daraasaadka iyo siyaasadda iyo horumarinta ee midnimo Institute for Political Science and Knowledge. insha Allah waxaan ka codsanaynaa please insha Allah casharada saan u soo galin doona. hadda waa qaybtii labaad. haddii for example aad casharo qabto ama for example aad su'aalo qabto, waxaan noogu reebi kartaa website-keena ama page-keena midnimo Institute for Political Science and Knowledge. waa macallin Suldaan Cabdullaahi Maxamuud oo idin leh salaan iyo nabadgelyo korkiina ha ahaato.